tan iyo markii magaalada Jowhar ay noqotay caasimadda maamulka Hirshabelle waxa ay bulshadu ay ku hamidheerayeen in magaaladu ay noqoto magaalo isu socodka gaadiidka ganacsiga iyo isboortigeeda uu noqdo mid sareeya waxaase shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ay ka hadleen oraahdoodana ay ka dhiibteen isbedelka magaalada Jowhar marka loo eego caasimadii hore ee maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo hadda ay noqotay caasimadda maamulka Hirshabelle shacabka ku dhaqan magaalada ayaa waxaa la dhex qaaday muuqaal baahiyaha Bulsho TV iyagoo fikirkooda ka dhiibtay isbedelka magaalada Jowhar marka loo eego xilligii ay ahayd caasimadda gobolka Shabeellada Dhexe waxayna shacabku inta badan ay tilmaameen in dib u dhac xoogan uu ku yimid tan iyo markii magaaladu ay noqotay caasimadda maamulka Hirshabelle waxayna shacabku ay tilmaameen inay ku haminayeen mar haddii magaalada Jowhar ay noqoto caasimad maamul inay noqoto magaalo ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan caasimadaha maamulada ka jira dalka niyo caasimadana horta waxay ahayd caasimadda gobolka Shabeelle Hirshabelle wuxuu ku soo aadixili aad u caqabad badan oo ana ma muuqato macna caasimadda Hirshabelle ahaan hiiraan iyo Shabeelle Dhexe isku mufuro ko labo dunyooyinkii oo maanta alaabta iyo waxyaabaha ganacsi loo qaadi lahayd waxa weysiyo iyo waxyaabo badan ayaa ka taagan caasimadana waxay caasimad ku noqonaysaa ama ka dhaqaale ahaan hadii dunyooyinka degmooyinka gobolada kale isku furo oo maanta hadaad alaab qaatid aad geyn kartid balweyne hadaad balweyne alaab ka timaadane Jowhar ma karto si taxi badan saacado gudaheed marka Hirshabelle waxa uu hadda uu magacan waa haynaa laakiin ka maamul ahaan iyo ka dhaqaale ahaan iyo ka macnaha adeegyada bulshada u baahneed laga mahayo والله runtii hadii aan ka hadlo inkastoo hadda yani Soomaalida ay tiraahdo waqti walba ay waayihiisa way dhici rabo qoriyihiina sayeshe aniga hadii aan qiimo ahaan aan sameeyo waqtiga caasimadda ay noqotay iyo waqtigii hore ee caasimadda ay ahayn qiimeen ahaan ganacsiga hadda wuxuu igala hoos maray sidii markii hore ay ahayd maxaa yeelay hadda yani dhihima karo markii hore hadda ka wanaagsan dhihima karo markii hore ayaa wanaagsaneed wallahi ganacsiga mar walba uu iska socdaa inkastoo hadda yani maaragtay dadka gobolka ay yani maaragtay intooda badan ay aaminsan yihiin maalmaha zabdiga iyo hadda inuu reermiga ama reer baadiyaha ay ku badan yihiin xagga yani shaqada inkastoo aaminsan yihiin mar walba iyo waqti walba yani maaragtay shaqo way jirtaa way wanaagsan tahay shaqada lata aniga ganacsiga hadda socdo in uu midkii hore uu ka bedelan yahay maxaa yeelay wacyigelin aqooneed ay u baahan tahay marka waxaan dhihi lahaa wasaaradda yani faham ganacsi ah ee dadku ay wax ku fahmaan wacyigelinteeda inay sameeyaan dhanka kale haweenka ka ganacsada iibinta qaadka ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen isbedelka magaalada Jowhar tan iyo markii ay noqotay caasimadda maamulka Hirshabelle waxayna sheegeen in uu jirin isbedel muuqdo iyagu ay dareemayaan marka laga reebo qaadka oo soo galo xilliyo hore ay ku tilmaameen intaasina ay ku qabaan dhibaato baasan waxaana haweenku ay sheegeen in dhibaatooyinka ugu horeeya ay yihiin inaysan haysan jaanis ay caruurtooda ay ku xanaaneeyaan maadaama qaadka magaalada uu soo galayo 9 subaxnimo bedelka ganacsiga jaadka dib aad ah aan loo fiicneed markii oo baabuurka diyaaradda sidii loo keenay subaxdii soo dheelmahayna ilmaheena quraac ma siisano nimankeena quraac soo ma siisano saa u soo fadhiisana inta cawada 3 saac kadib wax isbedel markii baabuurka oo noo fiicnaa qarash hadda wax isbedel ma ujeedaba diyaaradda noo soo gudbiyay miiska noo soo saara cawada hadda u badana 100 kuna keenay laakiin hadii qudaarka u xilay sidoo kale raashinka kale oo micnaa qudaarta noo baxdo hadii lagu qaadi lahayd okay haale Abdulfatah Ahmed Maclow Abdulfatah Zaki telefishinka caalamiga ee Bulsho Jowhar